taliska qaybta booliska ee gobolka Sool ayaa soo bandhigay qalab iskugu jira hub baaskoolado, toorey, mindiyo iyo samacadaha lagu xidho bajaajta oo ay bulshadu aad uga cabatay. qalabkan kala duwan ayaa lagu soo qabtay howlgalla muddooyinkii u dambeeyay booliska gobolka Sool ay ka wadeen gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool gaashaanle sare Axmed Cabdilaahi Cabdi ayaa ka warbixiyay howlgalkan ballaaran ee ay ka wadeen gudaha magaalada Laascaanood isagoo sheegay inay si laba jibaari doonaan ka boolis ahaan ay markasta u taagan yihiin sugidda amniga gobolka Sool. kilibka saaka waxaan ku qabanaynaa oo ay taariikhdu tahay 27 bisha 2 2021 taliska qaybta gobolka Sool xaruntiisa taas oo aan ugu talagalnay waxa meesha yaallay arkaysaan dadka dhibaato ku haya haday muusika la tuma tahay haday tooriyaha tahay haday bastoolada tahay ciidanka booliisku ay soo qabteen muddo imika marka laga soo bilaabo bishan imkaan ku jiro laga soo bilaabo 6deedii ilaa maanta hawlgal baa soconayay gaadiidka gala magaalada habeenkii waa 8 gaari oo galinka hore ah iyo 2 gaari oo galinka dambe ah ilaahay baa mahad leh oo amniga magaalada wanaajiyay oo noo sakhiray oo noo fududeeyay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo sii wanaajiyo hawlaha aanu hayno gacanta ku hayno annaguna wixii dadaalay aanu qaban karno inaana waxba kala harin waa waajibkayaga sida ama madaxyadu amar ku bixiso ama dhaqaalaha ku bixiso ama talaha ku bixiso waxa naga go'an oo go'aanka iyagu yahay in magaaladaas ilaahay hadduna la qabto ay nabad noqoto dhinac walba oo dadkeedu nabad ku seexdaan runtii waxoogay iyadoo dad badan ku dhintay baan magaalada nimi intii aanu nimina ilaahay wuu noo sakhiray wax dhimasho ka dhacday nin ceel ku dhacay iyo gabadh uu ninkeedu dilo isagana la qabtay nin toori ku dhuftay iyo nin gabadh madaxa ka dhuftay bud intaasaa ka dhacday intii aanu joognay oo haatan gaaraysa 3 bilood dhow intii bana gacantaanu ku dhignay ilaahay baana noo sakhiray oo dhibaatooyinkii faraha badnaa naga yareeyay ciidanka booliiska gobolkuna runta marka loogu tago haday ciidanka saldhigyada tahay haday ciidanka birmadka tahay oo runtii ah de gacantiyada midig oo hadaanan haysanin anaa waxba qabaneen aad bay u shaqeeyeen ta magaalada ka muuqata ee shaqadiina waxa weeye inta iyaga ka go'an ciidamada waxaan kula dardaarayaa hadaynu iska fadhinaa dhibtu way soconaysaa hadii aan soconno oo habeen walba saan soconno way yaraanaysaa dhibaatada tuu gudaa indhihiisu iyo qaba waanu galaa habeen kasta waanu galaa saldhigyada sidoo kale ciidanka barbadka sidoo kale raggaasi ma seexdo mana fadhiisto way isbedelaan inkastoo rag labada gelin galaaba ku jiraan rag xil gaar ah isa saaray oo shaqadii booliiska ahayeen shaqo ka badan hayaana way nagu jiraan oo iyagu dadaal dheer muujiyay ilaahay bay xaqiisa ka helayaan wanaaga magaalada ka muuqanaya waa inta ciidanka booliiska ka go'an wanaaga magaalada ka muuqanaya waa inta ciidanka booliiska ka go'an fadhiisan mayno kana joogi mayno kana fadhiisan mayno waayo gobol xasaasi aynu joognaa xad baynu ku noolaa dadka soconaya waa fara badan yahay hawl badan iyo hadal yar baa inoo baranaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood.